magaalada Buuhoodle waxaa ka socota olole dhaqaale loogu ururinayo dadkii ganacsigoodii iyo guryahoodii ku gubteen dabkii ka kacay 5tii bishan qabalaha Jarmal ee santarka Marqaan Weyne degmada Booq ee gobolka Doolo. dabkan ayaa ka kacay kaalin shidaal iyada ay ku gubteen in ka badan 25 guri. cuqaasha culimada iyo maamulka gobolka Cayn Puntland ayaa bulshada ugu baaqay inay ka qayb qaataan caawinta walaalahooda dhibaatada soo gaadhay. 5tii bisha November 2020 waxaa dab uu gubasho qasaare soo gaadhay santarka Jarmal. waxaa meesha ka dhacay qasaare baaxad leh. waxaa dad kuma naf waayin oo dad kuma dhiman, laakiin waxaa qasaaroobay hanti fara badan. waxaa meesha ka baxay 23 guri oo gubtay iyo burbur isugu jira. waxaa la gadmay oo inta iyagana meesha ka baxay hantidii dhex taalay ee lagu ganacsanayay. waxaa sidoo kale iyaguna qasaaroobay dadkii ammaanooyinku u yaaleen. waa la soo qiimeeyay qolalkaas hanti badan baa meesha ku dhuntay oo ilaa 50 iyo dhowr kun oo dollar ah, laakiin qolalka waa la soo qiimeeyay 23 qol wax lagu qiimeeyay. anigu hadda markaan qiimeeyay oo wax la yiraahdo qolkii 700 oo dollar baa ku baxaysa, oo waa qol jiingada ma aha dhagax iyo wax la mid ah, xitaa masquul ma laha. waa qolkii jiingada ay hooyan lahaayeen 23 qol oo min 700 waa 16,100 dollar. hal qof baa bixin kara, hal qof oo kaliya ayaa arinta qaadan kara. waxaan ognahay walaalaha qola qayb kamid rag kamidi wadooyinka dhaadheer ee 45 kilomitir inay nin qori u dhisay. ninkaas khayr intee leeg buu qaat ilaahay subxaanahu wa ta'aala hantidiisa iyo dadkiisa ha u barakeeyo. marka saasoo kale la rabaa in la sameeyo, in la geesinimo la sameeyo oo nin qori u yiraahdo 3 guri aan qaadanaya ilaahay ugu dhawaanaya. 23 qol hal qof baa rabnaayo loo duceeyo deegaanka iyo dadku baa u soo duceeyaan oo qaata. insha Allah marka 23 qol oo 26,100 dollar insha Allah hal qof qaato hadii ay qaadan waayana magaalooyinka Minneapolis iyo Columbus iyo Seattle iyo Boston iyo Toronto iyo London baa meesha la yiraahdo Pacific Australia ka soo qaatay. Nairobi, Muqdisho, Minneapolis 5,000, Columbus Ohio 4,000, Seattle Washington 3,000, Boston 3,000, Toronto 5,000, London 5,000, Australia oo dhan 5,000, Nairobi 5,000, Muqdisho 5,000. lacagtaasi waa 40,000 baan u malaynayaa. 40,000 insha Allah magaalo walba inta aan ku xukmay hadii ka badaysana waa khayr, hadii kalena waa idin yareynaa intaan idin ku xukunay isla baritan noo soo dir. Allah idin barakeeyo, idin soo ducaynaynaa. soo ah dab ka kacay magaalada Jarmal oo khasaare badan waxa weeye geystay. sidaa daraadeed waxaa laga rabaa caawimo bilaadantinimo inagoo waxa weeye isku dad ah, isku dal ah, isku waxa weeye qoys ah. dhammaan Soomaalida dhan ay yihiin dad ehelo aad isugu dhow. waxaan baaqa koobaad u diranaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel ay joogto, gaar ahaan ummadda reer Buuhoodle iyo nawaaxigeeda meel ay joogaanba, in ay ka soo qayb qaataan dhibaatada deegaankaasi ka dhacday. Maxamed Gunre, telefishinka caalamiga Hon Cable, Buuhoodle.